ujeedadana ururada iyo siyaasadda ka lahayn waxay ahayd in axsaabta iyo ururada siyaasaddu noqdaan waxaynu qabyaaladda iyo qoqobka iyo reernimada kaga baxno waxaynugu dhacay waxaynu ka yaacaynay xusbiyada reeraynu u tirinayna kuwan hore waxaynugu dhacday qaar qofof hogaaminayaan markaanu aragnay sida wax u socdaan markaanu aragnay in dawladdu qaar fangaraynayso markaanu aragnay dadka qaar in lala dagaalamayo markaanu aragnay ururada iyo waxyaabaha la sameeyay inay hebel ku xumeey yihiin oo isla qabyaaladii iyo wixii socdaan waxaanu aragnay inaan fikirkii waqtigan munaasib ahayn siyaasi maxamed dhimbiil oo ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee reer Somaliland oo halkan hoteelka Daalo ugu waramayay CBA TV ayaa ka hadlay xaaladda Somaliland iyo sidoo kale dagaalada ka socda gobolka Sool siyaasiga ayaa geesta kale taageeray hadalkii uu dhawaan jeediyay gudoomiyihii golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khariif ahaa inuu la daran yahay dadkiisa reer Sool waa siyaasi oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale Cabdirasaaq Khariif baad weydiisay daanu waxaan ku ogaa horta gudoomiyihii golaha wakiilada qofku dadkaygaan la dareenahay inuu yiraahdana wax dambi ah ma arko mar haddaan oran dee qarannimadii baan ka noqday iyo Somalilandnimadii wuxuun bay tahay maan silay anigu duruuf oo dadkiisa ku dajinayo xaaladooda ayaan arkaa wuxuu ka hadlayna dadkaygaan la dareenahay baahid dadkaygaan macni la dareenahay dee anigu ma arko waxaan dadku qaar waxay leeyihiin aragtida wuxuu qaatay garaadadii iyo wixii iyo maamulka ku dhawaaqeen laakiin anigu sidaa ma arko si ka duwan baan u arkaa qofna dadkiisa la dareen noqon kara ururka horta ururka dadweynaha Somaliland waa qolada magac isku haysan jirnay berigii wuxuu ahaa nin reer Somaliland oo qaranka u soo shaqeeyay horena SSC hogaamiye uga ahaa qofku hadduu arkay dadkiisii aanay ka mid ahayn systemkii ama dhibaato jirto inuu dadka isla dareen noqdaan dhibaato ma arko laakiin inuu qarannimada Somaliland ka noqday ilaahdaa waxaan u arkaa inay nusqaan u tahay dadka reer Bohoodle reer Lascad reer Somaliland dalka iyaga leh yuu uga noqonaya qarannimada Somaliland isagu Somaliland ha hogaamiyo isagoo Bohoodle degan ha hogaamiyo marka qalad baan u arkaa inuu ilaa qarannimada baan ka noqday laakiin qofku dadkiisa inuu la dareen noqdo dadkiisu siyaasiye waa sax bay ahayd ururka magac isku haysta balka wuxuu ku dambeeyay magac ururkii markii dee horta ujeedadana ururada iyo siyaasadda ka lahayn waxay ahayd in axsaabta iyo ururada siyaasaddu noqdaan waxaynu qabyaaladda iyo qoqobka iyo reernimada kaga baxno waxaynugu dhacay waxaynu ka yaacaynay xusbiyada reeraynu u tirinayna kuwan hore waxaynugu dhacday qaar qofof hogaaminayaan oo isla tabtii wadadii horun haya oo ka sii aan dee sidii aynu ugu talagalnay aan ahayn marka waxa weeyaan markaad xusbi ama urur siyaasiya samaynayso waa inaad ideology fikir aaminsan tahay siyaasiya oo dadka wax ka bedelaya annagu waqtigaa waxaanu aaminsanayn in jiilkan hore siyaasadda ku jiro oo dhan aynu bedelo in dadka reer Somaliland ee min bari ilaa galbeed waqooyi ilaa koonfur dadka reer Somaliland generation cusub oo da'da ka yar 40 jirka ama 40ka la isugu keeno oo hogaamin cusub iyo wax wada yeelasho cusub iyo jiil cusub soo saara oo qarankan hogaamiyo oo 30 sanadood soo socda u sii samaysta madal wax laga hogaamiyo markaanu aragnay sida wax u socdaan markaanu aragnay in dawladdu qaar fangaraynayso markaanu aragnay dadka qaar in lala dagaalamayo markaanu aragnay ururada iyo waxyaabaha la sameeyay inay hebel ku xumeey yihiin oo isla qabyaaladii iyo wixii socdaan waxaanu aragnay inaan fikirkii waqtigan munaasib ahayn laakiin hoosta laga dhisa fikirkiyo dadka reer Somaliland bal dhibtan aanu dareenay ay mar wada dareemaan